munaasabad lagu daahfurayay ururka la magac baxay Somali Anti-Ignorance Movement SAM ururkan oo ah dhaqdhaqaaqa jahliga dirirka Soomaaliyeed ayaa lagu daahfuray magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda. Munaasabadan oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay aqoon-yahano, culimo u diin, ganacsato iyo ururka haweenka iyo xubno ka socda safaaradda Soomaaliyeed ee dalka Uganda. Ugu horeyn madasha waxaa daahfuray gudoomiyaha ururka dhaqdhaqaaqa jahliga dirirka Soomaaliyeed gudoomiye Sada Cabdi Cali oo loo agaasimay xafladan si nabadana noogu qabsamsiiyay. Mahadda labaad waxay u sugnaatay waan in halkan ka soo amaano ku hadlay ururka dhaqdhaqaaqa jahliga dirirka Soomaaliyeed dhammaan ka soo qayb gashay oo ugu horeyso safaaradda Soomaaliyeed oo nagala jooga magaalada Cali Khadar iyo dhammaan gudoomiyaasha jaamacadaha kuwa foorumyada iyo jaariidaha bahda saxaafadda DJ-ga iyo dhammaan barbaartay hortaagan inta kadib maraba hadalka inaan ku dheeraado ujeedooyinka loo aasaasay Somali Anti-Ignorance Movement waa laga hadlay iyo adaaftiisii haddii aan ka hadlo waxyaalo yar yar oo ku saabsan waxyaalaha uu qaban doono ama diyaar koolanahay annagu waxaan dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka imaatay gobollo kala duwan kadibna isku keenay fikir iyo idea iyo creativity kadibna yagleeyay ururka aan magaciisa caawa halkan ka taawanaysaan oo talagalay in loo yagleeyo ama laga aasaaso in ninka gobolku ka yimid uu ku celiyo kadibna Soomaaliya ay noqoto baranjiyadeena ugu waaweyn oo aan ka duuli doono laakiin halkan ay tahay dhalinyarada aqoon-yahanada isku imaatay kadibna aan isku dhaarsanay si mataqaana markii alaamana wadankeena si volunteer ah ugu shaqayn lahayn idinkana waxa rajaynaa in nagala soo qayb gastaan sidaas oo kale qaadataan sidoo kale waxa madasha ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka Kasmo Ruqiya Cabdiraxmaan oo ku hadlaya magaca madasha Kasmal Forum ahna gudoomiye ku-xigeenka madasha Kasmal Forum waxaan halkan uga hambalyeeynaa barnaamijka kan ay qabanqaabiyeen dhalinyaro Soomaaliyeed oo cilmi iyo caqli u saaxiib ah waxaan rabaa inaan ku baraarujiyo madasha Kasmal oo ku salaysan barnaamijkan oo kale oo ah barnaamijka madal la dagaalanta jahliga horumarisa cilmiga iyo caqliga dhalinyarada Soomaaliyeed oo u furta barnaamijyo waxbarasho cilmi isweydaarsi isdhaxgal iyo waxyaabo badan oo dhalinyaradu ka faa'iidaan inta ay joogaan wadankan sidoo kale madasha waxaa ka hadlay gudoomiyaha rugta qorayaasha Soomaaliyeed Yuusuf Xasan Afgaalo na sheegay in ay la shaqeyn doonaan ururka SAM wanaagsan waxaad furteen wado cusub innovation baad la timaadeen waxaan leeyahay horay u socda waxaan u mahadcelinayaa gudoomiyaha iyo dhammaan xubnaha maaragtay ka qayb gashay waxaad qabanaysaan iyo sida aad u qabanaysaanna waad nala wadaagteen halkaas waxaan si weyn idinkugu mahadcelinaynaa inaad innovation keenteen waana idinkugu hambalyeynaa inaad furteen waa idinkala soo qayb galnay waana idinla shaqayn doonaa waxaa madasha soo xiray la taliyaha labaad ee arrimaha bulshada safaaradda Soomaaliya ee dalka Uganda Cali Qadar Wardheere si uu nabad u helo labo qorayaasha waxa laga rabaa inay qoraan wixii meeshaas ka soo baxay oo lagu heshiiyay Kasmaal dadku waa in la isku keeno kaskooda wax laga maalo waxaa soo haray jahliga maxaa la yiraahdaa waa la isku qabsaday wax yar in tusa oo jahliga dhibaato kaliya qofka wuxuu wataa baasaboor Soomaaliya wuxuu wataa shahaado astaanti Soomaaliya ku sawiranta jaamacada u dhigtaa haddana wuxuu leeyahay aniga waxaan u dhashay Banaadir State dadka ajnabiga ah u yimid wuxuu ka dhaadhacsiinaa inuu asaga xaafad ka yimid warmeeshan maxaa ku joogtaa adiga horta immigration-ka Uganda maxay kugu siiyeen dalku joogaaga marka nin mufikira oo madaxda Soomaaliya ka tirsan oo rabin magaciisa inaan sheego ayaa waxyaabo sidaan oo kala qof sito dhalashadiisi haddana ka faanayo kale wax la mid oo inta arko wuxuu yiri waxyaabaha qaar inaan faahno inaan waalanay u baahanta maskaxdaadii ka weynaanay gaalada waxay yiraahdaan it is beyond my thinking capacity marka maskaxdaadii ka weynaanay qof asagii sita astaantiisa qaranka haddana ka faanayo ee ku faanayo xaafad marka fadlan wixii aan u nimid iyo wixii naloo soo diray haddaan sameey karin dadnimadeena muwaadinimadeena sharafteeni Soomaalinimo aan ilaashano
gabagabadii Sade Cabdi Cali oo ah gudoomiyaha ururkan ayaa warbaahinta u sharaxay ujeedada ugu weyn ee ururka SAM. warbixina sababihii nagu dhaliyay in ururka aasaasno waxyaalihii nagu dhaliyay waxa kamid ah baahi aan ogaanay in loo qabo bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan oo ku nool gobolkii Soomaaliya ku nool macdaheenu uu yahay marka isla yeeglaynay in dhalinyaro Soomaaliyeed oo meelo kala duwan ka imaatay oo ka barata ayaa waxa isku keenay fikirkan ah inaan sameeyno Somali Anti-Ignorance Movement oo aalaya waxbarashada iyo tacliinta ciribtirayana jahliga. Abduhaab Ibrahim Abdi, Kalsan TV, magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda.